su-aasha isweydiinta wadana waxay tahay shirkan magaalada Dhuusamareeb ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore iyadoo aan ognahay in maamul goboleedyadu ay diidaan in ay tagaan Muqdisho oo madaxweynuhu ku casuumo horta inta badan markay doorasho soo dhawaato dalkan oo Soomaaliya isjiid fara badan baa dhacaa hadda waxa la isku haysto Soomaalida waxay taagantahay laba darab min dooro mid waxa weeyaan mid ugu horeeyay waxa weeyaan dowlad macnaha baarlamaan adduunku aqoonsan yahay oo xiriir jab ku imaaday ayaa wuxuu mariyay yaani in Soomaaliya ay gali doonto doorasho hal cod ay hal qof ah iyo maamul goboleed ayagana doonayo inay macnaha wax ka bedelaan oo yaani nidaamkan doorashada dadban la yiraahdo in lagu soo dalka lagu soo dabaalo ay dawladdu ku eedeynayaan maadaama 3 sano ay bar dawladda ay soo jirtay waxna ay qaban laadahay dawladii yaani in hadda ku qaban karin hal sano yaani doorasho cod iyo qof ah inay ayagana aaminsan yihiin marka meesha waxa taala dadka Soomaaliyeed waxa hortaala marka waxa weeyaan waa dhibaato waa laba waxa waxay galeen between hard place and rock yani dhagax adag iyo meel adag u dhaxayaan marka haddii marka nimanka maamul goboleedyada naftikooda oo runtii yani waxay qaadanayaan waxa meesha ka baxay awoodii meena baarlamaanka rabay inay ay naftooda qaataan oo macnaha ay wadankii macnaha yani dhahan wadanka doorashada banu galaya taa marka hadii ay doonaan hadii lagu baaqana meesha waxa ka baxaysa marka awoodii baarlamaanka way ka baxaysaa nidaamkii xisbiyada badna xisbiyadan madasha ay leeyihiin ayagana awoodooda meesha way ka baxaysaa oo macnaha yani waxa weeyaan nidaamkii xisbiyada faraha badna hadda Sacuudiga ama xisbiyada madasha la oran jiray ayaga naftikooda awoodooda meesha way ka baxaysaa oo macnaha maasha hadda waxa gorgortamay dawladii executive-ka iyo nimanka maamul goboleedyada ayaa marka gorgortamaya waxa marka banaanka taagan baarlamaanka banaanka taagan oo sharci ahaa oo sharci diinta loogu talagalay waxa kale ay banaanka taagan madasha xisbiyada badan xisbiyada madasha ayagana banaanka taagan yihiin marka waxa weey martimi markay ku noqonayaan wax meesha ka socda marka waxaan moodaa marka dadka wax bartay Soomaalida waxa marka la gudboon laba shay weeyaan mid waxa weeyaan in yani baarlamaanka la ixtiraamo maadaama baarlamaanka mudiis uu yar yahay xilli yarna uu haray ilaa 6 bilood 7 bilood waxa meelaas ay hortay laakiin hadda waa nusus jiro waaye oo lagu ixtiraamo ay mudan tahay baarlamaanka aqalka sare aqalka hoosena waxa ku jiro dhammaan dad laga soo doortay gobolada maartay ama Puntland ha noqoto ama Jubaland ha noqoto ama South West ha noqoto ama Hirshabelle ha noqoto ama Galmudug ha noqdo yaani waxa weeye dadka baarlamaanka ku jiro goboladaas ay marka ka imaadeen marka baarlamaanka awoodiisa markay rabaan inay xayuubiyaan marka gobolada ay rabaan inay xayuubiyaan oo macna baarlamaanka ay leeyihiin macna waxa weeye wuxuu noqday institution executive kala macna dawladda ay leedahay noqday ay ku eedeynayaan kuwan waxay leeyihiin maya hal ixtiraam institution baarlamaanka la ixtiraamo caalamka aqoonsan حرجم هدور هو كوي ماذا أصلا معنا وحويها يعني وحويان يعني هلا أقبله معنا برلمان كوحبرية كون وحلي مايا دورشة ضد بنا لقليا دورشة ضد بنا لقليا دورشة عد قف صورة قلمان دولتنا لقى مرجين إن جارسية برلمان كان لقى مرجين وجارسية لقى رجين هاي مركا جودهان مركو حمد حلو بتصبح حلو بهاي هاي إن يسمح له يقانا كومبرومايس إن يسميان ما اللي حل السوق ماذا ذلك الله سمى تبحيه تاسع مهمة مارت. أوكي سيدو كلا حسين عبد الحلاني أصلا دينا بدح فديان سينيا مدن وزير maxay kula tahay inuu shirkan uga duwan yahay shirarkii hore ee madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka wardada xiriirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu in door ma fiicneen marka ma dhacin ba shirarkii ahayd inay dhacaan ma dhacin ba sababtoo xiriirka xumaa darteed nimankan marka reer Galmudug runtii way isxilqaameen waxay gobol bay dhigeen waana ku mahadsan yihiin waxay muujiyeen inay doonayaan inay dalka ka badbaadiyaan dalka isagoo waxba heshiis lagu ahayn ba waqtigii uu dhamaanayaa xukuumadda hadda jirta marka gogashan nimanka dhigayna actually waxay ahaayeen niman lagu tirinayo xagga federaalka inay u dhow yihiin filla Soomaaliya u dhow yihiin in xamar la tagi waayo waxaa keenay aamin daro u dhaxaysa xukuumadda federaalka iyo xukuumadda maamul goboleedyada ka jira oo qaarkood xitaa amnigooda ku aamini kareen xamar nimankan marka dhaxdhaxaad inkastoo haddii dhinac loo badinayay dhinaca u dhawaayeen xukuumadda federaalka bay ahaayeen gubashay dhigeen marka in qolo walba timaado marka shaqo fiican bay qabteen waxoogay waxaan Dr. Cabdiwahaab aan maarta ku garamarsanahay faham fiican baan laga haysanin
doorashada iyo waxa aan nahay horta anagu habkan aan qaadanay waa habkan leeyahay parliamentary baarlamanku shaqo uu ku leeyahay sharci buu dejiyaa maahana doorasho maamulkeed ma laha doorkooda maaha waxa la dooranayo waa iyaga isma maamuli karaan iyagu inay kuraasta ku soo noqdaan doorashada waxaa leh oo maamulo guddi madax bannaan oo mid qaran iyo mid goboleeda yaa doorashada leh guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo guddiyada doorashooyinka dowlad goboleedyada doorashaduna dalku markuu federaal yahay maamulkeedu wuxuu ka dhacayaa statiska kama dhacayo nationalka caalamka oo dhan waa sidaa marka waxaad moodaa in dadkii la gelinayo xaalad jahawareer sharciga doorashooyinka ayay dejiyeen baarlamanku sharci dejinta ayagaa leh laakiin doorasho ayagu ma maamuleen mana isdooran karaan laakiin doorashada haddaan laba u kala qaadno doorashona waa mid guud oo wadanka ka waa usoo socdaa wixii xildhibaanada waa gooni doorashada xildhibaanada iyo soo xulistooda ama aqal sare ha ahaato ama aqal hoose ha ahaato laakiin doorashadii guud ee wadanka in wadankan ay dowlad dhexe ka jirto oo awood leh oo iyadu wax walba baarlamaan leh baarlamanka matala maamul goboleedyadii sida lagu doodayo ma u aragtaa maamul goboleedyadii in shaqo aansan lahayn aysan ku jiraan maya waxaan rabaa isigu waa macnaha kuu kala cadaynaya waxaan horta haddee xalka waxaa la rabaa inuu xal sharci waafaqsan yahay innaga hadda waxba ka dhidhimanaadeen constitution baan leenahay wax badanna qeexaya kala cadaynaya awoodda dowladda federaalka iyo awoodda dowlad goboleedyadana wuu kala tilmaamayaa inkastoo ay jiro meelo uusan ka aamusan yahoosana aada ugu talax tegaynin baarlamanka waa labo midna waa sanadka midna waa aqalkan hoose baarlamanka la yidhaahdo baarlamanka labadooda markay isku tagamay baarlaman yihiin waa hay-ad sharci dejineed weeyaan executive-ka waa xukuumadda federaalka iyo xukuumadda dowlad goboleedyadana waa executive weeye ayagana because ayagu waxay leeyihiin marka soomaalidu sideedaba waxayban qaadaninba fikirkan federaalka weli madaxooda ku jira madaxweynihii magacaabaya guddoomiyaha saylac iyo afmadow shee ka dhammaatay weeyaan dalku awooduhu way qaybsan yihiin waa in la ogaadaa awooddii xamar keliya taallay way dhammaatay waa history weeyaan hadda xukuumadda federaalka waxaa laga dhaadhicin lahaya inay fahmaan awoodda dowlad goboleedyada uu dastuurku siinayo marka halka layska garamarsan yahay waa halkaa profesorka rabaa inaan siiyo awoodda kala qeexista ma dastuurka khaladaad ka jira mise maamul goboleedyadii ama dowladda federaalkeedba waxay raadinayaan awoodaysa lahayn horta soomaaliya markay federaal qaadanaysay gobolada waqooyi kalama tashan oo somaliland markay go-eysana gobolada koonfureed kalama tashan dastuurkan waa dastuur kumeel gaar ah weeyaan dastuur wuxuu dastuur noqon karaa marka loo codeeyo oo dad gabadha soomaaliyeed ee joogta raas kambooni ilaa raas caseer ay u codeyso ayuu dastuur noqonayaa waxaan waa xeer jajab horta dastuur ma ahan waa data incomplete lahaa wax haba yaraatee waa sababta yani inta badan oo dastuur noqon waayna waxa weeya history kale u baahan yahay oo barnaamij kale aan ka dhigi doonaa laakiin midaan raba in walaalkay minister ku raacsanaan ku sheegaa dhigeysa waxa weeyaan waxyaalaan ku khilaafsanaa raba sorry waxa weeyaan baarlamaanku wuxuu baasmariyey sharciga doorashada oo hal qofa iyo hal coda uu baasmariyey gabadhii u weyneed guddiga doorashada xaliim yare idan waxay tiri doorasho cod iyo qof ah sanadaan ku qaban karay tiri sanad iyo xoogaan ku qaban karaya marka maadaama yani hay-adda sharci dejinta ay baasmarisay doorasho cod iyo qofa ay baasmarisay gabadhan ay codsatay muddo sanada in la siiyo meesha marka waxaa soo baxa marka laba arrimood soo baxaysa mid waxa weeyaan in la yiraahdo in goboleedyada iyo dowladda ay fadhiistaan oo political settlement ay gaaraan oo ay dhahaan okay gabadha maadaama cod iyo qof ay ku qaban karto hal sana ha loogu daro xukuumadda baarlamaankana ha loogu daro way ka soo goyi kartaa meesha way ka soo bixi kartaa wax xusunta yani nimankan waa niman waa saamalayda siyaasadda waddanka waaye inay macnaha fadhiistaan ay ka soo baxaan way yeeli karaan ma yeeli karaan waxay dhihi karaan doorasho dad banaan galno 4.5 ka ahayd oo muddadeeda ku dhacda taasna way ka soo bixi kartaa oo marka gabadha guddiga doorashada marka guddiga doorashada macnaha ayaga macnaha ay macnaha isku xilqaamaan in doorasho qof ay cod ay in doorasho dad ay qabtaan isu diyaariyaan leedahan bilo meesha ka soo hartay laakiin mas'alada meesha waxay tahay waxa yaro hadda meesha yaalo in lagu dunto ma aha
waxay yiri mashal waxa weeye baarlamaankaas way baarlamaankan waa baarlamaan adduunyada aqoonsan tahay يعني حرجة بحكوا ما سانكوي شيء حكوا ما هذا لكن إن لقوا احترامه يعني شرعي إمارية باس مريان وهو أرن في عواي وإن لقوا احترامه ما دام يا عب الدور وحكوا لولا كل شيء يعني كسبوا بلا عرض كونفرنس إلا 2017 سوماليا وحكوسوا على 20 سنة واي وحكوسوا جرت دورشة ضد بني كوسوا جرت دورشة ضد بن قربان التوري على السجري حياة والصوماليا أفغانستان ويكفي عنتها حق أبنك صوماليا سوريا ويكفي عنتها حق أبنك صوماليا العراق ويكفي عنتها حق أبنك مركا بشار الأسد ومعناها يعني تاسو يعني بمبين يكون عيان الصندوق اللي قالوا ده حروات 7 ديس هلوعد يداهي maxay marka armida ilaa dara rabina aan ogaado waxay tahay walaalkeen waa fadhiya alxamdulillah waxa fadhiya maanta yani living history ah oo taariikh nool ah ayaa maanta nala fadhiya warab inaan weydiiyo waxay tahay war 20 sanaad ku soo jirteen doorasho dad bare doorasho cod iyo qof hada sal lagu gaarsiin karo maxaad ku diisan